Arrintan waa arrin mucjiso ku noqotay oo ka yaabisay dhaqaatiirtii. Gabadhan oo 18 jir horay aan u dhalin ah. Markeedii horena la sheegay in ay nin ka soo raacday oo ay ka soo dhuumatay aabaheed weliba xilli uu u baahnaa. Xilligaas oo hooyadeed oo umul ah ay geeriyootay, caruur yar oo hooyada dhashay la doonayay maadaama ciyaalka ay u weyn tahay aabo macallin dugsiga ayada inuu u dhiibo, laakiin ayadii tiri maya ma hayn karo oo nin ay isjeclaayeen sida la sheegay la soo dhuumatay Muqdisho timid. Laakiin dhacday yaa badan ayaa ka dhacday oo mucjiso ku noqotay ayadu markay uur yeelatay isbitaalada Muqdisho. Haddaa qisadan kuwaana qaadan weydo mucjisaadka dhacay ee dunida la isku dhex tusanay alla yaab weydo, waxa waa idii ku dhaad iimaankaaga fid ma ahan. Aan ku bilaabay sheekadan oo ka soo bilaabatay magaalada Muqdisho deegaanada ku xeeran aan dhihi karaa meel fog ma ahan. Mid ka mid ah macallimiinta dugsiyada Quraanka ayaa xaaskiisii habeen foolatay. Waa taqaanaan intii isbitaal magaalada loo soo waday dhibaatooyin iyo jugjug badan ayaa gaartay. Aabihii xaaskiisii waxaa la keenay mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho, way dhashay laakiin problem dhanka dhiigga ah maadaama qaliin ay ku dhashay ay hooyadii u geeriyootay. Hooyada markay geeriyootay marka aabihii oo niyad jabsan, macallin dugsiga dhaqaale badan iska haysanin, ahlu quraan ahlu diin wuxuu sameeyay gabar yar oo ay ku umul raacatay oo gabadhii ugu dambeysay dhasha ah ayuu qaaday. Hooyadan hooyo weyn ahayd. Gabar markii waxa uu joogtay 17 meelahaas aan qiyaasnay. Aaba wiilashiisu way yaraayeen, gabadhaas u weyneed wiilala ku xigay. Wiil gabar kale la muusan dhalin. Wuxuu rajo ka qaba marka cunugan yarka ah in aan bahooyo kale loo baahnaanin oo gabadhiisu ay hayn karto. Markii gabadhii yareed ee soo cusboonaatay hal gabar horena markii qabay uu geeyay guriga ayuu gabadhii u dhiibay dhabtu ka saaray. Wuxuu dhahay aabo hooyo way dhimatay, gabadheedii baarida ahayd oo ducaysan, gabadhan waxaan rabaa inaad koriso oo adi aan kugu ogaado. Ilaa aabo waa taqaanaan gabadha xogteeda hoos aab ma ogeyn, laakiin hooyadeed Allah u naxariiste intaysan geeriyoon waxay gabadhan ku balansanaayeen in nin ay isjecel yihiin lagu daro. hooyo waa geeriyootay. Laakiin marka xaaladda meeshaas marayso maxaa looga baahan yahay gabadhu? Go'aan positive inay qaadato. Ayadoo fiirinaysa mushkilada guriga taagan, ayadoo fiirinaysa xanuunka tacsida iyo geerida hooyo, ayadoo fiirinaysa murugada aabe, ayadoo fiirinaysa caruurta yar ee guriga joogo ee habaraha noqday amba rajada noqday. Maadaama ay tahay gabadhii ugu weyneed guriga familka oo dhan. Gabadhan oo Faadumo lagu magacaabay go'aan kale ayaa u qarsanaa. Wayna ku bareeri weyday oo u bareeri weyday inay aab u sheegto oo tirada aabe no aniga gurigan ma sii joogayo oo waa guursan rabaa. Saaxiibkeedna way ka dhacsiin weyday xilligan oo kala soo doonasho ah oo aabe iyo marxaladda lagu jiro ma cuntamayso. Go'aan aad u xun ay qaadata. Laakiin intaan u gudbin dhibaatooyinka halista ah ee go'aankaas ka dhalan doono ee xataa dhaqaatiirta ka yaabiyay gabadhaas waxa ku dhacay iyo sida marka dambe Ilaahay u fudeeyay, intaan u gudbin waxaan rabaa inaan idin la wadaago marka gabadhu waxay samaysay. wiilkii wacday isagana waxa la rabay inuu garto oo yiraahdo waa dumar mugti war saan ma aan xaalada jirto. gacanta la iska soo qabsaday. Muqdisho la yimid waa la tabaabshaystay. aaba gabadhii habeenka dhow raadinayay. gabadhu waa baxdo saafi aad guurkan qudbasirada aad u nacbaaniga waa la isnikaaxsaday oo waa la isqudbasiraystay sida la sheegay. aabe cunugtiga oynayso dugsi ma aadi karo, ma soo qaraabi karo. gabadhii unta qaaday oo wuxuu u geeyay gabar ay walaalo yihiin oo afgooyo joogto. war gabadhaydii weyneedna waa iga maqan tahay, nolol geeri kuma hayo. hooyadina waa iga dhimatay. gabadhii yareedna meelan geeyo ma hayo. anigaaba mucjiso aabo indhiis ilma ka socdaan. walaashii u tagay. walaashiis markuu u tagay waxa taqaanaan Soomaalida dhaqan gob ay leedahay. canugina waa laga qabtay, isagana waa la soo maamuusay xoogaa abtiya yimid la yiriyo waxba soo sii. wuu soo laabtay lug ku raadi cid kasta u tag bari guriga tagis tag hawareeri ee dabooqo familku nog raadi. nag 7 maalmood kadib ayaa waxa lagu yiri macallin gabadhaadu waa guursatay mugud miya
macalinka dhulka la wareegay war ha guursatay aawa gabadhi gabadhaad way guursatay maaragtay saas waa ogow nin ay la baxsatay ma xilligaan nin la baxsataa maxaa ka khaldama gabadhi muusan inkaarin laakiin aabe aada u niyad jabay nina la soo xiriiray wuxuu dhahay wiilkaasaan ka soconaa gabadhaad waa la guursaday wiilkuna hadda ma shaqeeyo waxbaa si ka ah waa lagu imaanaa lama sharfin lama maamuusin aabe waa la meermeeriyey arrinta qabiilaa galay ehelaa galay labadii ehelaa isfahmay sidii gabadhii guriga ku joogtay jimco aabe uma laabato ma booqato xaaladda ciyaalka ma weydiiso hal wiil oo wiilasha kamid ah hadashaa bis macalinkii marka geeriyo isaga diiwaan gashtay gabadhii waad dareemi kartaa duruufta ay kaga tagtay waad dareemi kartaa maamuuskiisa heerkay gaarsiisay waad dareemi kartaa sida aabba loo bahdilay macnaha waana waalid wuxuuna ku soo koriyey waa taqaanaa dugsiyada qur-aanka arbacada lacagar la iska qaadaa bishana cunug wax awooda wax dhiibo oo ku soo koriyey gabadhaas cid qur-aan usoo aqri inta ka bax aabba iska dan yar u ahaa inta markay dhacday hal sano kadib maxaa dhacay marka hal sano kadib waxaa dhacay in aabba horta gabadhiisii yareed uu soo ceshto guri keensado dadkii dariska ahaana islaan iska weyn oo maaragtay ayadana caruur haysatay la yirahdo war isla noolaadee la isku daro canugina loo dhiibay eedadii gabadhi yareed gabadhan uuray qaaday uurka markay qaaday oo isbitaal la geeyey weliba waxaa la sheegay in ayada qudheeda ninkeeda oo aan dhaqaalo badan awoodin magaalada banaankeeda uu dejiyey habeenkii markay foolatay oo umul saxaafadeed la geeyey oo ay dhali weysay oo ay rafaaday oo ay nafta ku yar tahay markaan xaalad kooma ay ku jirto ayaa gaar lagu soo qaaday isbitaal kamid isbitaalada muqdisho oo qisadeeda marka hore dhaqaatiirtu ay la wadaageen aabaha uga sheekeeyey dhaqaatiirtii aan la sheekaystaa ii sheegeen gabadhii waxaa lagu yiri dhiig ku shubida tahay cunuga calooshaada ku jira waa meyd bal fiiriya waa qaliin ayaa lagu yiri ninkii lacagtii qaliinka wixii dhan markii loo sheegay marka hore walaashiisa soo waday waxna ma haayo gobanimo isbitaalka inta yimid walba lama dhimanin oo ma kor taagnayne waa iska dhuntay ninkii markuu dhuntay dhaqaatiirtii ay arkeen xaaladda inay xun tahay gabadhaana ay gargaar tahay waxaa la yiri war isbitaalkan ha laga bixiyay haddana isbitaalkan oo soos liiraa la geeyey SOS la geeyey wax ma haysano duruuftaana jirto gabadha qaliin waa kumbiyuutar saareen waxay dhaheen canuga kilidaana lugihiisa joogo kilidaana madaxiisa joogo duudkiisa meesha dhalmada soo xigaba meesha madax laga rabay duudkaas soo xigo waxayna u badan tahay canugan inuu meyd yahay wax dhaqdhaqaaq oo nuucsiyo male haddii aan saacadaha soo socdo la qalin oo aan la saxiixina way dhimanayaan aabaheed alla waxay qaadatay hal saac iyo bar kale aabaheed inuu yimaado aabe soo cararay isbitaalku yimid meeshii maxaa ka dhaca marka ilaan gabadhan aabaheed shalay weji uma oolin maantana waa halisay ku jirtaa wayna dayacan tahay xitaa qof saxiixa ma lahan dhaqaatiirtu sida wax u jiraan kama warqabaan aabe waxaan ku tilmaami karnaa hero aabihii ugu wanaagsanaa ee taariikhda aan maqlo ee gabadhiisa oo intaas oo dhibaato u geysatay haddana garab taagan ee aan dhihin aawo ninkay shalay raacday waa taqaan aabayaasha qaar gocashay leeyihiin waxbay gocdaan aaba markii meesha uu yimid waxaa dhacday in la yiraahdo saxiix gabadha waa la qalaa rightna waa la qalaa waa diiday aabe dhaqaatiirtii dhexdooda buu ka dhacay wuxuu dhahay give me a chance lix saac xoogaa yimid wuxuu dhahay lix saac xoogaa camal yimid wuxuu dhahay khudbada markaan soo dukado asku ma hayna waa diideen maya ma gaari karto dhaqaatiirtu awood ma laha gabadha la saxiixin mugtahay marka waxay dhaheen wariyeen ugu dhimanay amba baxsada waa taqaan isbitaalada halkaas erey yaqaan amba baxsada amba hala qala gabadhan dhiigeeda la raadiyay dhiigga la helay qaliinka loo diyaar garoobay aabbo wuxuu dhahay please codso intaas aabbo khudbu aaday masaajid oo meesha ka dhawaayo khudbu ku soo dukaday hadda waaye marka arinta mucjisada ah oo la yaab ka badan markay dhacayso markuu salaada ka soo laabtay aabe ee isbitaalka ku soo laabtay dhaqaatiirtu waxay ku dhaheen haye saxiix ma yoo dhahay mar labaad
وانا نفبح مركان قبل هل حبا عصا وده قبل إذا إن لا تسيو أنا جاي أيضا إن لا يسكون كان جيو وأنا أعرف قبل إذا هل السوى ذي أبى قبل ده لو كان قرآن يرو ساري حدونتا وقعنت كساري إلا يكيلو جي إلا كيلو كيلو جي إلي مو قدر شو أبوه ويا الله والله المدي دسق وقدر أوي ما وقعنت كساري وحول هاي بناك وصوب حيالا سحر قدر قلة ما يود هذا لقاتير توا حناقين مركان وحول ده وحاعد صنع حال ما الكمبيوتر اللي يقوي عليه قبل والكمبيوتر لو كان قبل عنق صنع عنه ويا الله عنق من صنع هل يقوي عليه الكمبيوتر تاسع كوني سمع قبل إذا أنا إيه شيء هذا أنا بدعي أرنت وقت كاتي دكاتير تقار كميدا مركو waxay dhaheen war intaan waa abolo sameey ha loo sameeyo computerka lagu celiyo gabadhi marka computer lagu celiyo dakaatiirta madaxa gacmaha saarteen cunugi kafku madaxa ugu jiraabo hatta meesha umulisada looma qaadine inta umulisada la wacay a meesha computerka lagu saaray lagu dhaliyo gabadhi cunug nool nash wiil nool dakaatiirtu waxay aabo maxaa sameeyay markaan waay marka aabo uu tabnaa ku bax uga sheekeynayo step uu leeyahay inta dhan la idaw jeclahay arinta meesha markii gaartay ee gabadhi si caadi u dhashay process uu dhacay waa yaabeen waa fajaceen aan fariin la qadqaatay cunuga saan aha hadana saan soo noqday cunuga meedka la mooday ee hadana nuuxsanay gabadhiisi iyo canugeedii oo aan cidna u maqnayn ceelna u qodnayn cidna daba soconin ayuu halkii ka waday markaas uu gurigiisa u ceshtay qiyaas marka aabaas wanaag uu sameeyay qiyaas marka sida gabadhaas isla adduunyada dusheeda loogu tusay ceelkii iyo xanuunkii aaba ay marisay qiyaas marka ku kalsooni la'aanta waalidka qiyaas marka guurka aan raaliga la iskaga hayn qiyaas marka in familkaaga aad ka raacdo nin wuxuu noqon doonaa aad ogeyn amba familkaaga aad ka raacdo naag waxay noqon doontaa aad ogeyn amba xilli xaaladda ay xun tahay Soomaalidu dhaqan ay lahayd hadii ninka iyo naagta ay maal qabeen yihiin xitaa taasi haday dhacdo maxaa laha war guurka dib noogu dhiga taasiya taagan laakiin ma aysan sameyn gabadhan balaaya wadatay waxay soo taabatay xeerada salkeeda waxay ka soo noqotay iilka qarkiisa waxay gashay mushkilo maanta ugu filan waana qaadasho waxa laga yaabaa marka hadda in adiga qof aad taqaanid ama qofna laga mid ah in maanta uu qorsheynayo familku xaalad adag ku jiro isku guursado amba ka dhuunto amba aab uu xumeeyo amba hooyo uu ka ilmaysiyo ma ogtahay waalidka inkaartooda tan ugu badan ee degdeg ku soo baxda inay tahay xaqa qofka gashay iyo naas jeclayna u gooy iyo waxa ka daran waalidkan dhibka ka soo maray ee ku soo koriyay arintiisa every second every time waxay noo qortaa halis ay noo qortaa waan ku mahadsantahay daawashadaada waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad share garayso dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed u gaaro ay ku amal qaataan kuwaana qaataan wax badan